waxaa halkan maanta noogu soo gabagaboobay shirkii wasiirada oo lagaga hadlayay laguna ansixinayay miisaaniyadda sanadkan 3 bilood ee labaad saad u ogtihiin miisaaniyaddii sanadkan way u suuro geli wada xildhibaanadu inay isku yimaadaan oo ansixiyaan sidaa daraaddeed aan sida uu noo ogol yahay sharciga maaliyaddu 3 bilood ee sanadkii u horeeyay laga soo bilaabo bishii koobaad ilaa iyo bishan March aakhirkeeda 31keeda waxa sharcigu noo ogol yahay inaan isticmaalo 3 bilood oo kamid ah sanadkiina dhaafay 2021 maadaama imika aan gabagaba ku jiro 3 bilood ee u horeeyay lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowrka cishe hadhay 12 cishe hadhay waxaa la isla gartay in 3 bilood loo keeno ka doodaan dabeetana emergency ahaan u ansixiyaan waxaa markaa aad ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada oo hormuud ka yahay ra'iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyeen 3 bilood 3 bilood oo ka bilaabmi doona bishan April 1 kuna dhammaan doona bisha 6 ee June 30keeda waxaan isku daynaa waxa weeye markaas inta 3 bilood u dhaxaysa waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaankii yimaado fadhiisto dawlad cusub dhalato oo dawlad la dhisanto oo dabeetana budgetkii oo miisaaniyaddii hagarla dib loogu noqdo oo la keeno dabeetana si fiican loo ansixiyo